Soo dhawaada janaalka dhacdooyinka dunida Tube ood uga barateen barnaamijyo xiiso badan. Maantana mawduuca waxaan kugu haynaa taariikhda Albert Einstein, saynisyaankii caanka ahaa. Albert Einstein wuxuu ku dhashay magaalada Ulm ee boqortooyada Wittenberg ee dalka Jarmalka taariikhdu markay ahayd 14 Maarso 1879. Waalidkiis waxay ahaayeen Hermann Einstein, nin iibiye iyo injineer ah, iyo Pauline Koch. Sanadkii 1880 qoysku wuxuu u guuray Munich, halkaas oo Einstein aabihiis iyo adeerkiis Jacob ay aasaaseen shirkadda elektaroonika ee Fabrik. Einstein iyo Ambi C oo ah shirkad soo saartay qalab koronto oo ku saleysan hadda jira. Einstein kuma ahayn indho-indheyn Ashkenazi Yahuudi ah. Albert Einstein wuxuu dhiganayay dugsi hoose oo Kaatooliga ah oo ku yaal magaalada Munich laga bilaabo da'da 5 sano ilaa 3 sano. Markii uu jiray da'da 8 sano waxaa loo bedelay Luitpold Gymnasium oo hadda loo yaqaano Albert Einstein Gymnasium, halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashada dugsiga hoose iyo sare ilaa uu ka tegay boqortooyada Jarmalka 7 sano kadib. Sanadkii 1894 Hermann iyo shirkadda Jacob waxay lumiyeen dalab ay ku siinayaan magaalada Munich layrar koronto, maxaa yeelay waxay u baahdeen caasimadda inay qalabkooda ka beddelaan heerka tooska ah ee loo yaqaano DC una dhigaan mid ku habboon oo beddelanaya heerka hadda jira ee AC-ga loo yaqaan. Khasaaraha ayaa qasbay iibinta warshaddii Munich iyagoo raadinaya meherad. Qoyska Einstein waxay u dhaqaaqeen Talyaaniga. Markii hore waxay u dhaqaaqeen Milan iyo bilo kadib waxay u guureen Bavaria. Markii qoysku u guuray Bavaria, Einstein oo markaa 15 sano jir ahaa wuxuu joogay Munich si uu u dhammeeyo waxbarashadiisa Luitpold Gymnasium. Aabihiis wuxuu damacsanaa inuu ku sii wato injineerinta korontada, laakiin Einstein wuxuu la dagaalamayay mas'uuliyiinta wuxuuna ka carooday nidaamka iyo habka waxbaridda ee dugsiga. Markii dambe wuxuu qoray in ruuxa waxbarashada iyo fikirka hal-abuurka ah uu ku lumay barashada adag. Dhammaadkii Diseembar 1894 wuxuu u safray dalka Talyaaniga si uu ugu biiro qoyskiisa Bavaria, isagoo ka dhaadhicinaya dugsiga inuu u oggolaado isaga oo adeegsanaya qoraal dhakhtar. Intii uu joogay Talyaaniga wuxuu qoray maqaal gaagaaban oo ciwaankiisu yahay On the Investigation of the State of the Ether in Magnetic Field. Einstein had iyo jeer wuxuu ku fiicnaa xisaabta iyo fiisigiska, isaga oo da'yar oo gaaray heer xisaabeed sanadihii ka horreeyay asxaabtiisa 12 jirka ilaa 13 jirka ah. Einstein wuxuu baray naftiisa aljabra iyo geometriga Euclidean in ka badan hal xagaaga. Einstein wuxuu sidoo kale si madax bannaan u helay caddayntiisii asalka ahayd ee aragtida Pythagorean-ka markii uu ahaa da'da 12. Macallin reerka ah Max Talmud ayaa sheegaya markii uu siiyay 12 jirka Einstein buugga Geometry. In yar kadib Einstein wuxuu ka shaqaynayay buugga oo dhan. Xisaabtiisu xagga xisaabta waxay ahayd mid aad u sareysa oo aanan raaci karin
jacaylkiisa geometry iyo aljabrada wuxuu u horseeday 12-jirka inuu ku qanco in dabeecadaha loo fahmi karo qaab dhismeedka xisaabeed. Einstein wuxuu bilaabay inuu barto naftiisa calculus markii uu ahaa 12 sano, iyo markii uu 14 jirka ahaa wuxuu leeyahay waxa uu u bartay isku dhex dheelitirnaanta iyo kalifaano kala duwan. Isaga oo 13 sano jir ah, markii uu si dhab ah u xiiseynayay falsafadda iyo muusikada, Einstein waxaa loo soo bandhigay Kant's Critique of Body. Sababta iyo Kant wuxuu noqday falsafadiisa ugu caansan. Macallimadiisu waxay tiri waqtiga uu weli ahaa ilmo oo keliya 13 sano jir, haddana shaqooyinka Kant oo aan la fahmi karin dadka caadiga ah waxay u muuqdeen inay isaga caddaayeen. Goor dambe, Theognis Hochschild ETH wuxuu ku guuldareystay inuu gaaro heerka loo baahan yahay qaybta guud ee imtixaanka, laakiin wuxuu ka helay heerar aan caadi ahayn oo ku saabsan cilmiga fiisigiska iyo xisaabta. Taladii maamulka iskuulada cilmiga farsamada wuxuu dhigtay iskuulkii Arjovian Cantonal Gymnasium ee ku yaala Aarau, Switzerland, sanadkii markuu ahaa 1895 iyo 1896. Inuu dhammaysto waxbarashadiisa dugsiga sare intii uu la fadhiyay qoyskii Brofeesarka Jost Wendler, wuxuu jacayl ku dhacay gabadhii Wendler, Mary Alberta. Walaashiis Maria wuxuu markii dambe guursaday inuu Wendler Paul bishii Janaayo 1896 oo uu aabihiis oggolaaday Einstein wuxuuna ka noqday dhalashadiisa boqortooyada Jarmalka ee Wurtemberg si looga fogaado adeeg militari. Bishii Sebtembar 1896 wuxuu ku baastay Swiss Matra darajooyin wanaagsan oo ay ku jiraan fasalka ugu sarreeya ee 6aad ee maadooyinka fiisigiska iyo xisaabaadka, oo ah qiyaasta 1 ilaa 6. Markii ahayd 17 sano jir, wuxuu isla diiwaangeliyay barnaamijka 4 sano ee xisaabta iyo barashada cilmiga fiisigiska gelisay dugsiga cilmiga farsamada. Waxay ahayd haweeneyda keliya ee ka mid ah 6 arday ee xisaabta iyo qaybta fiisigiska ee koorsada diblomayaasha. Dhowrkii sano ee soo socday saaxiibtinimadooda, Einstein iyo Mary waxay ku noqdeen jacayl, waxayna wada akhriyeen buugaag ku saabsan fiisigiska manhajka dheeriga ah, kaasoo Einstein uu si xiiso leh u qaadanayay. Sanadkii 1900, Einstein wuxuu ku aflaxay imtixaanaadka xisaabta iyo fiisigiska, waxaana la guddoonsiiyey dibloomada waxbarista ee federaalka. Waxaa jiray sheegashooyin ah in Mary uu la shaqeeyay Einstein waraaqihii 1905 oo loo yaqaanay waraaqaha Annus Mirabilis, laakiin taariikhyahanada cilmiga fiisigiska ee bartay arrinta ayaan helin wax caddayn ah oo muujinaya inay wax ku kordhisay, weliba wax ku ool ah. Halkan waxaa inoogu eg barnaamijkeena aan uga hadlaynay taariikhda saynisyahanka caanka ee Albert Einstein. Fadlan channelka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, like dheh si ay dhiirigelin inoogu noqoto. aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.